halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington iyadoo ay ka harsan yihiin ilaa iyo 4 maalmood maalinta doorashada madaxweynenimada ay ka dhacaysa dalka Mareykanka ayaa indhaha oo dhani waxa ay ku fooraraan gobolada codadkooda ay gurguraan gaar ahaan gobolka Ohio marka la fiiriyo ra'yi baarista dadweynaha gobolka ayaa labada musharaxi ay aad isugu dhow yihiin hase yeeshee waxa laga yaabaa in Soomaali u dhaxaysa 18,000 ilaa 20,000 oo haysta dhalashada dalka Mareykanka oo xaqna u leh inay codeeyaan in markii ugu horeysay taariikhda siyaasadda dalkan dhinaca ay raacaan ay guushu aadi doonto haddaba tirada Soomaalida gobolkaasi ka codeynaysa iyo ahmiyadda ay u leeyihiin doorashada ayaan weydiiyay Jibriil Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio ugu horeyn gobolka Ohio waxaa ku dhaqan Soomaali gaaraysa ilaa iyo 50,000 oo qof dadka codeyn kara ama xaq u leh inay codeeyaan oo muwaadiniinta ah tiradoodu waa ilaa 18,000 ilaa 20,000 oo qof inta u dhaxaysa doorashadan Soomaalidu waxay muhiim u tahay gobolka Ohio waa gobol aad muhiim ugu ah labada murashaxba Mitt Romney iyo madaxweyne Obama labadoodaba way u baahan yihiin inay ku guuleystaan Ohio si ay madaxweyne u noqdaan gobolka Ohio aad bay isugu dhowdahay taageerada looga hayo labada musharax marka Soomaalidu waxay leeyihiin cod buuran oo 18,000 oo qof ah aaga ay ku leeyihiin ama deegaanka ay ku leeyihiin oo ah bartamaha Ohio waa meesha ugu kala qaybsanaanta badan oo dhinacii ay raacaan ay u dhaxaysaa doorashadu waxaad ka hadashay bartamaha Ohio ka waran dhinacyada waqooyiga iyo galbeedka oo kale sidee loo kala leeyahay dhinacyada kale Ohio waxaa loo kala leeyahay dhinacaas waqooyiga xiga oo magaalooyinkaas Cleveland iyo Youngstown iyo waxaa taageerada ugu badan ku leh madaxweyne Obama oo dadka degan waa dad magaalooyin waaweyn iyo wax soo saar ku yaalo oo dadkoodu waa dad aad u taageera madaxweynaha dhinacan kale oo bariga Ohio iyo dhinacaas koonfurta xiga ayagana waxaa aad taageero ugu haysta Mitt Romney waxaana ka shaqeeya dad fara badan oo ka shaqeeya qodaalka shidaalka iyo soo saarka tamarta iyo waxyaabo lamid ah madaxweyne Obama xogaa taageero uu ka helay dhankaas laftiisa sababtoo ah gaadiidka warshadaha sameeya meeshii ku yaalaan weeyaan gaadiidkaasna wuu caymiyey madaxweyne Obama markuu madaxweynaha noqday sidaas darteed xogaa taageero halkaa ka haysta meesha ugu muhiimsan laakiin waxay tahay halkan bartamaha ah oo markii loo tartamayo xildhibaannimada dalkan Mareykanka markii loo tartamayo magaalada Columbus waxaa lagu kala guuleystaa wax ka yar 1,000 cod marka waxay muujinaysaa in dadka degan ay u kala baran yihiin labada xisbi ee dimuqraadiga iyo republikaanka meeshii 18,000 oo cod ay raacdana ay culays badan saarayso meeshaas markaad fiiriso hadda waxyaabaha xisbiga jamhuuriga qaarkood ay Ohio ka sheegayaan waxaa kamid ah in dadka codeynaya gaar ahaan qaar kamid ah Soomaalida aysan ahayn dad luuqadii yaqaan oo laga yaabo muwaadinimadooda inay su'aal ku jirto maxay tahay sababta arintaasi ay u xusayaan teer iyo dagaalkii ilaa iyo laga soo bilaabo 2001 markii ay dhaceen qaraxii New York ka dhacay xisbiga jamhuuriga ama republicanka waxaa majaraha u hayay dad ka shaqeynayay inay xisbigaas u muujiyaan inuu yahay xisbi la dagaalsan dadka muslimka ah iyo dadka soo galootiga ah gaar ahaan sanadkii 2010 dad fara badan waxaa lasoo doortay Tea Party ama loo yaqaano oo nacayb fara badan u muujiyay dadka soo galootiga ah nacayb fara badan u muujiyay dadka islaamka ah dadkaas ayaga qaar kamid ah oo reer Ohio ah ayaa waxay sameeyeen qoraallo ay ku leeyihiin dadka Soomaalida oo ayagoo sharciyeysnayn oo aan haysanin waraaqihii ay ku codeyn lahaayeen iyo sharciga dalka ku joogi lahaayeen toona ayay codeynayaan si madaxweyne Obama dib loogu soo doorto qaar badan oo kamid ah xataa dacaayado ay kamid tahay burcadbadeed Soomaaliya oo Obama maraakiib ku soo qaaday iyo si ay ugu afduubaan doorashada Ohio iyo wax la mid ah saas ay qoreen laakiin waxaas ma aha wax ayagana caawinaya dadkan Soomaalidu waa dad sharcigoodii iyo nidaamkoodii haysta oo xaq u leh inay codeeyaan codeyntoodina way xuquuqdaadasna way gudanayaan oo way codeynayaan si wanaagsan bay u codeynayaan ugu dambeyntii maxay Soomaalidu ka helayaan haddii ay u codeeyaan madaxweyne Obama oo aanay ka helin marka ay u codeeyaan Mitt Romney adoo soo koobaya haddii la fiiriyo labada xisbi ay kala matalaan ama labada
falsafadood ee kala matalaan. Mitt Romney nidaam ahaan wuxuu aaminsan yahay dowlad u shaqaysa ganacsatada waaweyn ee Mareykanka. ganacsatadaas boqolkiiba hal ama boqolkiiba labo dadka Mareykanka ayaa ah, halka madaxweyne Obama iyo xisbigiisa ay aaminsan yihiin dowlad u shaqaysa shacbiga oo dadka intooda badan danahooda fulisa. arrintaas dood fara badan baa ka taagnayd. hadda shalay dabeyl baa ku dhufatay dalka Mareykanka toddobaadkan. dabaysha ku dhufatay waxay u baahan in dowladdu gasho hawsheedii oo dadkii ay u gargaarto. dadkii Republikaanka ahaa ama jamhuuriga ahaa ee aadka madaxweyne Obama ugu haystay dowladdu weyneynaya iyo dadku wax taraya waxaa ka mid ahaa ninka guddoomiyaha ka ah gobolka New Jersey oo la yiraahdo Chris Christie markii duufaantii ku dhufatay gobolkiisii waxna aanu ka qaban karin. waxaa u tagay madaxweyne Obama si gacmo furan loona ku soo dhaweeyay oo in loo baahan yahay dowladdii inay shaqayso oo dadkii wax tarto oo dadkii wax u qabato. asagiiba hadda qiray dadka inta badan inay baahnaadaan oo cabursanaadaan oo xiriir noqdaan oo gacanta lagu hayo oo cidda gacanta ku haysaana boqolkiiba hal ama labo cadaan oo xoolo fara badan haysta ay noqoto. dowladduna aanay awood fara badan yeelan wax loo maaragtay odayn karaya maaha. marka waxaan rajaynayaa Soomaalida inta badan inay madaxweyne Obama u codayn doonaan. kaasi waxa uu ahaa Jibriil Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio ee dalkan Mareykanka.